madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf iyo mas'uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedyada Puntland iyo Galmudug ayaa maanta si wada jir ah uga qayb galay munaasabad lagu maamuusayay maalinta nabadda iyo horumarka isboortiga oo lagu qabtay magaalada Gaalkacyo. Munaasabadan oo ay ka qayb galeen kumanaan dadweynaha ka kala yimid xaafadaha magaalada Gaalkacyo kuwa isugu soo baxay bartamaha magaalada sidoo kalena wadooyinka magaalada ku maray orod gaaban oo horkacayay madaxweyne Xaaf ayaa waxa uu horeyn ka hadlay gudoomiyaasha degmada Gaalkacyo ee labada maamul Xirsi Yuusuf Barre iyo Saahid Maxamuud Cali. Gaalkacyo baahi weyn u qabaan nabadda dadku waa uga sii nugulnahay Soomaaliya waxaan rabnaa in halka laga sii wado muddo lagu soo adkeenay nabadda oo dadku farxadeeyeen aad iyo aad ugu maasantihiin haddana nabadiina la sii adkaysto reemiyigi waxa bilaabeen isgaadgaadkii bilaabeen laga adkaadaysan naga adkaan ku xumaanta doonayo yarka waa barnaamijyada aadka loogu baahan yahay ee lagu sii xoojinayo nabadeena aan haysano ayna tahay inaan dhinac walba ka ilaashano sida gudoomiye Xirsi sheegay waan ku faraxsanahay inaan hawshan meesheeda ka soo wadno. Gudoomiyaha gobolka Mudug Cabdirashiid Xaashi Cartan ayaa isna ka hadlay ahmiyadda ay nabaddu u leedahay bulshada gobolka. maanta sharaf weyn bay noo tahay in maanta madaxweynaheennii oo gobolka jooga oo lagu hogaaminayo maanta maalinta Olombikada nabadda ah inaan si muuqaal weyn ku muujin anagoo wada jir ah taa waxay astaan u tahay inaan nabadda reer Mudug gaar ahaan reer Gaalkacyo ay diyaar u yihiin inay si dhameystiraan wax taagan nabadeeda sida loogu gaari lahaa. mudan madaxweyne anagu waxaan aaminsanahay bahas sportskan ka midnahay waxa ay qayb ka tahay isdhexgalka bulshada Olombikada markii way fara badan tahay waxaan rajaynaynaa inay arintan gaarto ilaa miyiga oo ah meelaha hadda aan dareemayno inay aad ugu baahi badan yihiin. gudoomiye ku-xigeenka guddiga Olombikada Soomaaliyeed Faadumo Cali Nuur ayaa sheegtay in nabadda xilligani ka jirta magaalada Gaalkacyo ay tahay mid ku dayasho mudan. wax iiga farxad badan male inaan arko maanta Gaalkacyo oo saan u midaysan oo ku nabad isoo haysato oo madaxdoodii iyo mas'uuliyiintoodii dhex taagan. afar habeen hadda Gaalkacyo jooga xamaran ka imaaday hal habeen xabad ma maqlin xamarna habeen kasta xabada waxay qaraxa dhacay. marka alxamdulillah meeshii colaada lagu tilmaami jiray oo maanta nabad loo soo aaday waa guul Ilaahayna siiyay. reer Gaalkacyo waa idinku adkeenayna nabadda waxaan idin rajaynayaa intaani in badan inaad ka sameysaan. munaasabadan oo sidoo kale ay ka hadleen intii ay socotay xubno ka tirsan golaha wasiirada Galmudug ayaa waxa gunaanadkii ka hadlay madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf. walaalayaal wax loo dibad baxo ama qorrax loo taagnaado oo nabad ka ilaalisan ma jiro. nabadda annaga ku nool iyadoo laguma noola. 2 sano ka hor meeshan xabadda ka dhacaysay haddana bastoolada lagu diimaa xabadda ma dhacdo hadda laakiin bariyaha kuwa hadda la sitaan rabnaa in dadku dhigaan kuwa hadda la sito ayaa loo baahan yahay in la dhigo. insha Allah baawur technical halkan waa ka zuulahayaa bori la sitaa waa ka zuulahayaa dadku nabad bay u noolaan doonaan. Cabdirisaaq Maxamed Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliya Gaalkacyo.